هي ومعمولها مدارك عقال انترناشونال ايربورت محمد يوسف اسماعيل محمد كسودو. بسم الله الرحمن الرحيم. وزيرك وزارة مدحتوية وزيرك وزارة دولستي هودا تليها عيدنك بليسكا تليها عيدنك هولجلنت عيدمada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland مسؤولي وزير كحيانك وزارة دولستي هودا agaasimaha guud madaxda iyo marti sharafta kale ee ka soo qayb gashay shirkan iyo shaqaale weynaha dhamaantiid waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. bacda salaan kulankeena iyo shirkeenan iskale sida la wada socotaan sida caadada bay noo ahaan jirtay waa shirkii sanadlaha ee in markastaba markuu xilliga xagaaga iyo xilligu xajku dhamaado shaqaalaha iyo shaqaale weynaha madaarka aynu ku abaal mari jiray shaqadana ku dardar galin jiray marka nasiib waxay nagaga soo beegantay xafladeeni dib u dhac yar oo ku yimid darteed isbeddelka ku yimi wasaaradaha oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ku sameeyay dib u dhac yar kadib xafladani waa xafladii inoogu weynayd intii aan madaarkan aynu joognay ee ka qabsoonta madaarka caalamiga Cigaal International Airport nasiib baynu yeelanay inay nagala soo qayb galaan in wasiiradii dalku kuwii ugu mudnaa taliyadii ciidamadu iyo dhammaan haldoorkii Jamhuuriyadda Soomaaliland farxad weyn iyo nasiib bay noo tahay anoo ku hadlaya afka shaqaalaha madaarka in aan nagala soo qayb gashaan na soo sharaftaan na soo karaameysaan. inta kadib waxaanu jecelahay kelmad aan leeyahay shaqaalaha kelmadna waxaan oranayaa wasiirkeenii hore wasaaradda duulistiya hawada ahna wasiirka madaxtooyada kelmadna waxaan oranayaa wasiirka cusub Cismaan Cadaani Saxardiid hadalkana waan soo koobayaa 10 minute ka badan maayo mudane wasiir shaqaalaha kullay dab ku horeeyo kelmadda oranaya shaqaalaha sida in la wada socotaan shaqaalaha ama adduunka maanta isbedel badan ayaa ka dhacay oo ku saabsan xagga security-ga maadaama aynu shirkii guud ee dhammaan shaqaalaha madaarka isku yimaadanahay waxaan la wada soconaa waxa ka dhacaya adduunka waxa ka dhacaya wadannada aynu jaarka nahay waxa ka dhacaya wadannada inaga quwadda iyo dhaqaalaha badan leh maanta diyaaradaha arkaysan la afduubayo qaar la soo ridayo qaar Allahumma salli ala Muhammad shaqaalaha laftooda gudahoodu waxa ay ku dhijirayaan ama ay sameynayaan mid waxaan idin kala dardaarmayaa dhammaan shaqaalaheenu inay wada noqdaan bilays dhamaantood ka qayb qaadashada haday war noqoto iyo haday adkeynta nabadgelyada madaarka guud ahaan iyo qaranka oo dhanba in aynu hay'adaha ammaanka ee shaqada kule kala qayb qaadano inagoo ilaashanayna sumcadda qarankeena inagoo ilaashanayna sumcadda wasaaraddeena inagoo ilaashanayna sumcadda madaarkaba in aynu dhammaan feejignaan gaar ah aynu yeelano oo aynu kala qayb qaadano hay'adaha ay khuseysay amniga wadanka ayaan kamadaasaan idin kula dardaarmaya dhammaan shaqaale weynaha wax kale shirar gaar ah oo aynu isku nahay wixii kale inta dheeraad oran doonaa waxaan jecelahay inay dhammaanteen feejignaan Soomaalidu waxay war la helaa baa tala la helaa markaynu wax shaqaalaha la wacyi geliyo la dardar geliyo feejignaan iyo lagu abuuro ayaa qofka shaqaalaha uu dareen uu qaadan karaa laakiin dareenku hadduu ku koobnaado mas'uuliyiinta iyo maamulka iyo wasiirka ayna shaqaaluhu iyo mas'uuliyiinta saraayna isla socon de farkaliye fool ma dhaqdo marka waxaanu jecelahay dhammaan waxa ka socda waa arkaysaan imikada laftigeeda waa la socotaa dadka la isticmaalaa ama la adeegsadaa ee masqad wixii ka dhacay waa ogeydeen waxa weey la adeegsanayo waxa shaqaalaha madaarkaas dadka wax ku dhajiyay diyaaradana waxa shaqaalaha madaarka ilaahay inaguma keeno laakiin waxaanu jecelahay dhammaanteed waliba shaqaale hoosaadka haday noqoto xamaalinta naasha haday noqoto xamaalinta diyaaradda shandada ka soo rogay shaqaalaha dibad faracada loo yaqaano dhammaanteed waxaanu jecelahay inaynu ciidan noqono aynu feejignaano aynu dareen ku shaqeyno taasaan jecelahay inaynu shaqaalaha weynaha madaarka u soo jeedinaya mid kalena waan jecelahay qodobka labaad ee aan jecelahay aan ka dhawaajinayo waxa weeyaan waxaynu halkan u nimi inaynu sii sabootino wasiirkeenii hore ee qiimaha inagu lahaa ay dhammaanteen intaan halkan wada fadhina wuxuu inaga mudan yahay aynu wada garanayna maanta qofna sheeke iyo golka fuulayna ku ahayn waxaanu jecelahay mudane wasiir ana ku hadlayo afka shaqaale weynaha madaarka inaanu si qalbi furan niyad furan
saaxiibtinimo iyo shaqaalinimada inaanu kuu sii sabootino kuuna ducayno shaqada kale ee ka culus ee aad haysay ee maanta lagu igmaday sidii aad tan uga soo baxday ee magaca iyo sharafta aad uga mudatay inaad kuwa kalena iyo kuwa ka sii sareeyana ilaahay kula garab qabto oo aad ilaahay kula garab qabto kuna guulaysato ayaanu kaaga rajaynaynaa kama warwarsani kamana baqa qabno anoo afka shaqaalaha ku hadlaya mas'uuliyadda lagu dhiibay inaad mid ka sii sareysa oo ilaa heer madaxweyne aad qaban karto annagoo kugu og karti annagoo kugu og dadaal annagoo kugu og odaytinimo iyo hufnaan shaqo waxaanu jecelahay taayo tu ka sareysaba inaad ka soo bixi karto kana soo bixi doonto wasiir waxaanu ku leenahay waxaanu kugu sii galbinaynaa qalbi furan